بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa maxamed cismaan budin. waxaan guud ahaan halkan ka salaamayaa bahda saxaafadda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan inta magaca iyo muuqayga garanaysa meel kasta joogaan. waxaan halkan ka soo gudbinayaa maanso la yiraahdo magaceeda Eebo. maansada Eebo waxay ku curatay imaanshihii Siiraanya u yimid gobolka Awdal. dareenkayga ku wajahan ayaabay ku saabsan tahay. waxay leedahay maansada Eebo: suugaantu afkayga weeyi, awoodda hubkayga weeyi, murtida indhahayga weeyi, indhaha bulshadayda weeyi, aruurba tusaalahayga, halkuu ku afbeeliheedhe mid weeye inshaar sarraysa, agaasinka jiiftadayda indheergarad baa fahmaya. aheya haddaannu arkayn wanaagga, garaadka adeegsigiisu miyaanu ahayn aroori. balaayada uma adkaysto, ladnaantana uma yabooho, haddaannu geyayn ixsaanba miyuu xilku aabba yeelan. abaal maba gudi taqaanid, amiirnimo kuma habboonid, axdina maba fulin taqaanid, cagtaaduna igama oosho. wuxuu dalku aaya beelay markii aafaad la siiyey, xilkiisa inkaysku qaaday. markaad ashahaadanayso damiirka islaam ka buuxo, dhulwaa ummad gaasiraya ilaan ma ishaari weydid. intaan axmed jiis arkaayo dadkayga ardaaga jiifa, xaqoodana iibsanayo, afkaygu dhaliil ma daayo, digniin ma aloosi waayo. dilaaga afeefta dheer leh dantiisa qabiil ku aasay, dhabtiisiyo eedihiisa abkayguma sheegi waayo. abraha maatida ku foofay, dilaala arwaaxahayga, intuu ka abraaray tayda dantiisa ilaashanaya. inuu yahay yey astaan leh dareenka uquubadiisu kun jeer ma inkaari waayo. hortaa axmedow xilkaaga dalkeenna ninkii amraayey ujeeddo cad buu lahaaye. haddaad ku asaasaqayso kuwii codka kuu amaahday, dhabbada ilinkay mareeni abaar kululaatay weeyi. abwaanimadaydu heedhe ka awran aqoonsigiinna, ka weyn ifafaalihiinna, shaxdayda abraaradeedu ka daahan awoodihiinna, irmaantiyo jiiftadayda aqoon-yahan baa fahmaya. abaal nin galaa yaqaane intayda markaan ka waayey, daraato shirkaan abuuray ayaha noloshiyo tashiinta. markuu arkay howlahayga ninkii ololow dhegayso. orkayga waxaan bilaabay markaad laba eef ahaatay, cadaaladda oof wareentay. intaada markaad waxsiisay, kolkaad ummadayda aastay, fadliga ubixii aad qaaday, markaad xilka oo dul saartay. adoo odayo gaboobay, weliba xil agaasinkiisa bulshada udubkeeda qaaday. qabyaaladda aabba beeshay markaad axmedow bilowday, ayaan aqalkayga xeertay. waxaase su'aal ib weyn ah, awowhankaagu miyuun oday sheegad dhaafin. ayeeya kufaanistaada, bulshada kala oodistaada, hadday tahay shay ixsaan le adduunkaa garan lahaaye. qabiilku adeegistaadu wataa burco kala irdhaysay, hargaysana eexda keentay, isgaadhsiintiina wiiqday. gartooda markaad asiibtay, cadaawadna soo afduubtay. adeer dadka awdal heedhe aroorso booqadkaaga, waxay u arkaan ilaaqe adiya indhabeelistaada. cakuya isagoo mas-uul ah, dad qaaday umuurihiisa, islaamnimo sheeganaya. markuu ixtiraamka dhaafo, jeeran oday loo dardaarmin. waxaan axmedow ku leehay markaan
waxaan axmedow ku leehay markuu arrinkaaga baadhay dhurwaaci diyaha afaystay abwaankii gabay ku sheegay alla ilahi muu habaabin intay tahay laba afduubka intay tahay uub daloosha intay tahay libin abaadan intay tahay edeg habaaran intay tahay eber malaasan intay tahay godin abaarsan intay indho tahay daboolan ustaadkiiyo macallinkoodu intuu yahay looma aaye intay tahay xerada oodan aqoonsi ninkii sugaayey ilaah buu been u sheegay mansadii la odhan jiray eebo halkaas ayay ku dhan tahay mar labaad waxaan salaamayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan badweynta saxaafadda waa abwaan budino inile assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh